shirkadda Dahabshiil Group ayaa maanta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ku wareejisay qayb kamid ah qalab ay hore ugu ballan qaaday shirkadda Dahabshiil Group oo ahaa inay ku soo iibinayso qalabka lagaga hortago caabuqa coronavirus lacagta qalabkaasina ay gaadhayso $600,000 qalabkii ugu horeeyay hordhaca ee kamid ah qalabkaasi ay hore ugu ballan qaaday shirkadda Dahabshiil Group ayaa waxa uu ka kooban yahay gaariga gargaarka degdega ah mishiinka lagu baadho caabuqa COVID-19 iyo waliba mishiinada dhaliya oxygen-ta munaasabada lagu wareejinay qalabkan caafimaad ee shirkadda Dahabshiil Group ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda madaxda sarsare shirkadda Dahabshiil Group iyo waliba qaar kamid ah madaxda gobolka Togdheer ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Faarax Axmed waxaa maanta sharaf noo ah daan nahay shirkadda Dahabshiil Group in aan wasaaradda wasiirka iyo agaasimihiisa ku wareejino qalabkii shirkaddu ballan qaaday qaybtii ugu horeysay qaybaha qalabku soo socda wuu kala dambeeyaa waxaana sababaya inay mar wada iman waayaan gaadiidka iyo COVID-19 oo dunidii kala xayiray oo diyaaradihii xayiran yihiin oo maraakiibta xayiran tahay baa waxay sababi weyday in qalabkii aanu mar qura ugu talagalay inay yimaadaan uu iman kari waayay marka intii timaadaba maadaama dadku baahidiisii ay taagan tahay in la sii gudbiyo oo marba meeshii loogu talagalay loo sii gudbiyo inaanan sii hayn oo aanan anagu halkan ku haynaano wasaaradda u soo gudbino ayaanu go'aansanay qalabkan maanta aan wareejinayno maca gaariga marka lagu daro ambalaaska 200,000 ayuu imka marayaa wixii aan hore u dhiibnay kaasha mooyaane qalabkii kalena wali wuu soo socdaa maanta waxaan wareejinaynaa haddii alla idmo PCR ayaanu wareejinaynaa waxaanu kana wareejinaynaa gaarigan ambalaaska waxaanu kala wareejinaynaa 2 mishiin oo midna halkan imka ku aragtaan midna oo gudaha saaran mid weyn weeyo wala dejin karo waayo wax weeyaan waxyaabaha waa mishiinada oxygen-ta degdeg u dhaliya ama qofka degdeg u siinaya ma garanaysaa naqaska degdeg uga saara agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Umar Ali Cabdilaahi ayaa si weyn ugu mahadnaqay shirkadda Dahabshiil Group qalabkan hordhaca ay ku wareejisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ilaahay ha ka jisaysiiyo meeshii ay ka soo saareenna wax khayr qaba Allah ugu bedelo waxay ka qayb qaateen hawshii qaran iyo hawshii ay waday gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee lagula dagaalamayay xanuunkan COVID-19 waxa kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxda shirkadda Dahabshiil oo run ahaantii halkan maanta aanu joogno in qaybtii hordhaca ahayd ee ugu horeysay ee agabkay ballan qaadeen ay nagu wareejiyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waan ka gudoonay waa sharaf bay noo tahay iyaga iyo annagaba waxaana tilmaan u tahay isku tashiga gabagabadiina wasiirka wasaaradda ayaa si rasmi ah qalabkani waxa uu ugu wareejiyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer oo goobta qalabka lagu kala gudoomayay xaadirka ahaa aad baan ugu mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka wasiirka iyo tiimkiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah taala reer Togdheer iyo reer Burcaana wixii aynu ka sugaynay gudiga aynu ku dhawaaqayno lahayn waxba nama soo gaarin horena wasiirka waa tuu inoo keenay sidaan horeba u sheegay wixii aynu tabaynay in kamid ah maantana intii ugu muhiimsanayd ayaa insha Allah taala maanta leenu ku wareejiyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa